barnaamijka wixii cusub ee Gaacir Media Tube. Barnaamijka wixii cusub ee Gaacir Media Tube waxaan idinkugu soo gudbin doonaa magaalada midab kala sooca ama nidaamka apartheid-ka oo weli ka jiro ee ku taala Koonfur Afrika. La socod wanaagsan. dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan intayna badan sidan taariikhda ku barnay ama ku maqalnay ayaa ahayd in Koonfur Afrika midab kala sooci ka jiray uu soo idlaaday sanadkii 1990 balse dhageysta ama daawada haddii lagu yiraahdo waqtigan oo 2020 la marayo Koonfur Afrika waxaa ka jira midab kala sooc maaminaysa haddaba warbixintan oo dhameystiran ayaad kaga boganaysaa barnaamijka wixii cusub ee Gaacir Media Tube balse intaa ka hor subscribe like iyo follow dhaha bogga iyo channelka Gaacir Media Tube aan ku leenahay Facebook iyo YouTube-ka. haddaba aan ku bilaabno warbixinteena. Orania waa magaalo baadiyaha fog ee Koonfurta Afrika cidhifkeeda waqooyi ku taala. Orania waa halkii ugu dambeysay ee haraadigii gumeystayaashii midab kala sooca Koonfur Afrika ay ku sugan yihiin. magaaladani lagama ogola dad madow inay soo galaan oo ka mamnuuc xitaa iska day inay ka shaqeystaan ama ku noolaadaan ama degaan intaba. Orania waa magaalo dad cadaan ah iyo dhashooda ay degan yihiin. Magaalada Orania waa magaalo daabacata lacagteeda bangiyo u gooni leh sidoo kale waxay leedahay maalmo fasax ah iyadoo u gooni ah. Orania waa magaalo si gooni ah u maareysa arrimaheeda. haddaba Orania si aad u gashid ama u tagtid shuruudda aad inaad buuxiso lagaaga baahan yahay ayaa ah maqaarka jidhkaada inuu cadaan yahay oo kaliya macnihii qof cadaan oo haddaad tahay oo kaliya unbaad tagi kartaa ama booqan kartaa Orania sababtoo ah Orania waa magaalo cadaan oo kaliya degan yahay oo midab madow iyo wixii la midka ah lagama ogola in ay halkaa galaan oo waa ka mamnuuc. magaaladan Orania geeska gees waxaa dhex tuban dad cadaan ah oo asalka awoowayaashooda uu ka soo jeedo Dutch ama Holland iyadoo magaaladani dad cadaan ah degan yihiin oo madow aanan laga ogolayn ayay haddana dadka degan magaaladani ku doodayaan inaysan ahayn cunsuriin waxay sabab ka dhiganayaan in ay yihiin Afrikaan maqaarka jirkooda cadaan yahay isla markaasina aysan doonin in ay bedelaan ama dooriyaan maqaarka jirkooda cadaanka ah. waxay sheegayaan in dhaqankooda ay ilaashanayaan. Orania waa magaalo ay ku dambeyso dhaxalkii gumeystayaasha cadaanka ee ku caan baxay midab kala sooca Koonfur Afrika. magaaladani Orania waxaa asaasay wiilka sodog u yahay Henry Ford oo la yiraahdo Hendrik Verwoerd oo ahaa ra'iisul wasaarihii hore Koonfur Afrika. Mr. Hendrik ayaa loo garan ogyahay inuu ahaa nashqadayihii ama asaasihii midab kala soocii Koonfur Afrika ee dadka madowga ee dalkaas lagu dhibaateeyay. Hendrik Verwoerd waxaa lagu xasuustaa xilligii midab kala sooca Koonfur Afrika ee wasaaradda waxbarashada dadka Bantuuga loogu magacdaray taasoo laftigeeda midab kala soociyo dhibaato muujinayso ayaa wuxuu ku caan baxay sharcigii Bantu Education Act ee 1953 ee lagu banaystay in la waxyeeleeyo carruurtii madowga ahayd iyadoo carruurta madowga loo diiday gabi ahaan inay helaan adeeg waxbarasho iyadoo takoor iyo midab kala sooc hub ahaan loogu adeegsaday. dadka Orania degan Hendrik aan kor ku soo sheegnay waxiiladiisa ayay u yaqaanaan inuu gees yahay oo sawirkiisa ay masxaf taariikh dhigteen halka Nelson Mandela dadka Orania aysan u aqoonin ama wax xushmad ah iyo karaamo aysan u haynin. balse waxaa xasuus mudan Nelson Mandela inuu ahaa aabihii xorriyadda Koonfur Afrika. magaalada Orania waa magaalo sifo sharci ku dhisan sida dastuurka Koonfur Afrika ku qoran oo ah inay ismaamul tahay balse dadka Orania degan ayaa sheegay in higsigooda fog uu yahay yagleelidda Jamhuuriyadda Afrikaner oo madax bannaan taasoo markii loo eego dastuurka Koonfur Afrika khilaafaysa. falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda iyo juqraafiga ayaa sheegay haddii Orania dal madax bannaan ah noqoto in dhibaato weyn ay u horseedi karto Koonfur Afrika. dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan waxaa intaay naga eg barnaamijka wixii cusub ee Gaacir Media Tube. barnaamij kan la mid ah intaan ku kulmi doono nabadgeno.